Qaylada dheer ee ka soo yeeraysa ceelka dhexdiisa waxa ay dadkii deegaanka u maleeyeen in uu reer aakhiraad yahay, balse waxa uu ahaa wiil yar oo 22 jir ah oo si kadis ah ugu dhacay ceelka. Intaan u gudagelin sheekadan, haddii ay tahay markii kugu horreysay aad soo booqato, waxaan ka codsanaynaa in aad nagu soo biirto maasan. Wiil dhalinyaro ah oo 22 jir ah ayaa waxa uu si kadis ah ugu dhacay ceel 12 mitir dhererkiisa uu gaarayo. Waxa uu sameeyay wixii awoodiisa ahayd oo ah in uu aad u qayliyo si ay u maqlaan dadkii deegaanka oo ay gurmada ugu soo fidiyaan, balse markii ay dadkii deegaanka maqleen codka dheer ee qaylada ah, waxay u maleeyeen in ceelkaasi uu ka dhex qaylinayo reer aakhiraad, oo ayna ka fogaadeen dadkii deegaanka agagaarka ceelkaasi oo dhan. Macada wiilkan dhalinyarada ah ee 22 jirka ah waxa uu ka dhex sameynayay deegaankan duurka ah ee ku yaala xadka u dhaxeeya dalalka Thailand iyo Myanmar. Ceelkan uu ku dhacay wiilkan dhalinyarada ah ayaa waxa uu ku yaala xadka u dhaxeeya dawladaha Myanmar iyo Thailand, waana ceel mar hore ay iska duugeen oo ay ka tageen dadkii deegaanka ee aagaasi ku sugnaa. Ceelkan ku yaala xaafadaas yar ee u dhaxaysa labadaasi dal ayaa wiilkan waxa uu ku jiray muddo dhan 3 maalmood iyo 3 habeen, waxaana intii uu ku jiray ceelkaasi ka soo gaaray dhaawacyo culus oo u badan kala goosyada iyo madaxa oo uu dhaawac culus ka soo gaaray. Markii hore oo ceelku ku dhacay, wiilkan dhalinyarada ah waxa uu bilaabay in uu zaid u qayliyo si ay u maqlaan dadkii deegaanka, balse markii uu arkay in aysan cidina u soo bixaynin oo gurmad degdeg ah loo fidinaynin, waxa uu go'aansaday in uu tamartiisa geydsado oo uu aamuso, maadaama ceelkaasi uu ku dhex jiray saacado badan. Waxayna qaadatay in wiilkaasi ceelkaasi laga soo saaro muddo dhan 3 habeen iyo 3 maalin. Dadkii deegaanka oo arintan markii dambe ka war helay ayaa u yeeray booliska, waxayna qaadatay in muddadaasi intaasi la eg uu ku dhex jiray ceelka isagoo aan haysan wax cunno iyo cabitaan ah. Gurmad dheer oo saacado badan qaatay kadib, wiilkan dhalinyarada ah ayaa lagu guuleystay in laga soo saaro ceelkaasi, maadaama uu saacado badan ku jiray ceelkaasi. Dhaawacyo culus ah ayaa ka soo gaaray ceelkan intii uu ku jiray wiilka. Waxaa loola cararay mid ka mid ah isbitaalada ku yaala dalka Thailand si dhaawaciisa loogu dabiibo halkaasi. Haddii uusan sameyn lahayn fikirkiisa ah in uu kala reebto awoodiisa iyo tamartiisa, waxaa dhici lahayd in meydkiisa laga soo saaro ceelka, balse wax walba Ilaahay ayaa qoray. Qof walbana sida uu dhimanayo iyo qaabka uu u dhimanayo, Ilaahay ayaa qoray isaga oo caloosha ku jira.